اسطنبول. رقية، اليوم إذا أردنا أن نقف على تفاعل وسياسات الأمس على اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي التركية وفي الصحافة التركية، كيف كانت رقية؟ نعم أحمد، شكرا لك. ولكن نستطيع أن نقول أن بالنسبة للمواطنين الأتراك فالأجواء كانت هادئة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي باستثناء المعسكر الخاص بالسيد كمال كليتشار أوغلو. ولكن بشكل عام كان التأثير الأكبر للصحفيين والكتاب الأتراك الذين تحدثوا عن نتائج يوم أمس، وكانت كالتالي. أحمد، سنتحدث في العديد من الأمور الهامة. كانت البداية هناك غضب كبير في مجتمع أو الفئة الخاصة بالسيد كمال كليتشار أوغلو بسبب استطلاعات الرأي. الكثير منهم يقول أن السيد كمال أعطاهم الكثير من الوعود والآمال، ولكن كانت مخيبة للآمال. هو وعدهم بأنه سيحسن من الجولة الأولى ولكن لم يحدث ذلك. الجانب الآخر من المواطنين الأتراك الداعمين لحزب الشعب الجمهوري والسيد كمال كليتشار أوغلو يقولون أن ما قام به أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول ورئيس بلدية أنقرة منصور يواش يوم أمس كان مخزي للغاية. فمنذ الساعات الأولى بدأت عملية التشكيك في نتيجة الانتخابات. واضح. marka maxaa kaloo ay sheegtay gabadha wariyaha waxay kaloo leedahay sheeko kaloo cajiiba dhacday leedahay. haweeney qatar ah, almaaniyad ah, oo dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo waxa kan kaambeenka ama ololaha doorashada u qaabilsaneyd Kamaal Kılıçdaroğlu Oğlu iyo xisbigiisa baa waxay tiri hore aniga qashinka dhalay mar dambe lama shaqeynaayo tiri. way ka tagtay, way iscasishay, istiqaaladeedii dhiibtay. waxay tiri wax laydinla shaqaynto waana laydin garaacaa, doorashadiina waa nooga dheesheen, Erdogan aan ka badinayn, Erdogan waa kaas naga koreeya, baarlamaankii naga qabsaday, wixii lacagana la ku bixiyey, wixii gaalana siisay, wixii kaloo dhan waa kaas. maxaan haynaa tiri. waa islaantii weyneed oo qatarta ahayd, ma garanaysaa. iyaduna waxay leedahay gabadha muryaha joornaalada dhan ay saaran tahay way iscasishay. waxaa kaloo iscasilay rag kale uu ka mid yahay nin xildhibaan ahaa oo kursigiisii soo waayey. xisbiyiinta islaamiga ka qaateen oo isna xisbigan calmaaniyiinta oo xanaaqsan ragga doorashada iyo ololaha waday ah. kaas wuxuuba ugu tagay xafiiska ninka la yidhaahdo Kamaal Kılıçdaroğlu Oğlu. wuxuu wariyaa wax aagasha ma laha, iscasilay uu yidhi, naga tag qashinyo. joornaaladii maanta wacdara ka dhacaysa ay mar kale idinku celiyo Ruqayya oo joogta Istanbul oo sheekadan dadkan iscasilay nooga sheekaynaysa. الآن أحمد ننتقل إلى موضوع آخر وهو الاستقالات في صفوف المعارضة. كانت البداية استقالة نائب رئيس السياسات الاقتصادية لحزب الجيد السيد أوزجان قاضي أوغلو، إلى جانب أيضا استقالة نائب برلماني سابق بحزب الشعب الجمهوري. وهذا الشخص طالب السيد كمال كليتشار أوغلو بالاستقالة وقال له أنه كذب عليهم وخيب آمالهم وأنه حمله المسؤولية في الخسارة التي شهدتها مدينة اسطنبول، رغم أن هناك واضح sheeka kow ma joogto. waxay kaloo leedahay Ruqayya waxaa kaloo cajiiba leedahay Erdogan Istanbul waa laga qaatay Solomadi. waa ooyayaanay tiri nimanka calbaasideedaba. horta waxaan rabaa inaan idiin sharaxo. Turkiga xisbiya badanaa jira, laakiin laba xisbiya waaweyn. xisbiga Erdogan ee islaamiga ah waa xisbi weyn oo waddanka 20 iyo dhowr sano maamulaya. xisbiga cadaaladda iyo horumarka la yidhaahdaa. xisbiga shacabka jamhuurigana waxaa la yidhahdaa xisbiga weyn ee calmaaniyiinta oo Kamaal Kılıçdaroğlu Oğlu iyo waxa kan iyo gaaloo dhan ku daba feeshanta. marka xisbiya yaryaraa jira. xisbiyada fakarka calmaaniyadda aaminsan kanay ku daba feeshayin. xisbiyada islaamiyiinta oo fakarka islaamka iyo waxa kan dadkan in la badbaadiya qabana Erdogan ay ku daba feeshayin. waana kala baxay. marka xisbigii weynaa ee calmaaniga ahaa doorashadantii ka horreysay Istanbul waxay ku haysteen 26 kursi. u fiirsada, Istanbul 26 kursi ku haysteen. mucjisaa dhacday.
haystaa 13 heleen 13 lagu luqluqday xisbiyadii kale yaryarka ku daay waa la qaatay marka iyadana aan idin maqashiyo iyadoo laga sheekeynayo ruqiya leedahay arrintaana way dhacday doorashadii hore 16 haysteen haddana 13 kaliya heleen inta kalena xisbiyadii kala qaatay. كان تقدم أو هناك تقدم للمعارضة في مدينة اسطنبول، إلا أن المعارضة نفسها وحزب الشعب الجمهوري يرى أن الحزب بذاته خسر ذلك. لماذا؟ لأن الحزب حصل على 31 مقعد في اسطنبول، منها 18 مقعد لمرشحين من أحزاب أخرى كحزب المستقبل وحزب دفا الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه علي باباجان، إضافة إلى حزب السعادة التركي، الحزب المحافظ بالتأكيد كما نعرف. ولكن المفاجأة أن حزب الشعب الجمهوري حصل فقط على 13 مقعد في اسطنبول، وهذه كارثة لأنها تمت المقارنة مع عام 2018 وفي هذا الوقت حصل الحزب على 26 مقعد. واضح. مركا شيكا كلو عجيبة شيكتي كبردن مانتا وايغا فرحساني waxay kaloo leedahay social media dhalinyaradii Erdogan ka soo horjeeday oo asagu siray waxay yiraahdeen waa beenta tuug dhalatahay muxuu ahaa Erdogan hal wareeg may u gaarayo niman shirkadaha inta kaasatay dhagahana looga afuufay naliiri war Erdogan wuxuu haysto male sanadkan waa baaba jecel lama arko dadka waa naceen maxaa la nacaa asaga wali dadka oo dhan ka sareeyay waa la gaari waayay wax la farsameeyo computer la galo kan la sameeyo wax walba waa la gaari waayay ilaahay awoodiisa barfiiri dadka ilaahay isku diray markaas waxay yiraahdeen ma ba joogtid ba adiga ma ba joogtid ba doorashada qayb ma ba ka ahayn qof dulli ahaatee wixii social media saga lagu kacay waa dadkii shalay u campaign gareynay dhalinyaradii wixii oo dhan kamaalkii u kacay marka ruqiya waxay leedahay kamaalkii inta meel soo istaagay ana huna aniga way kan waan jooga meel ma jiro ilaa darbada ugu dambaysa way fadhinayaa halaga adkaado ama aan adkaado meel ma aadin waan jooga dadaalka waa wada odaytay 8 jir maxaa keenay meesha waya ayadana aan idin maqashiyo iyadoo ka sheekeynaysa ninkan oo huna aniga way kan أيضا السيد كمال كليتشاروغلو منذ قليل بث فيديو له وهو غاضب للغاية ويتحدث على أنه موجود، إذ قال أنا هنا وقال للجماهير التركية وأنتم هنا يشير إلى قلبه، ثم قال والله بالله أنا هنا وسأكافح حتى اللحظة الأخيرة. هذا الفيديو أثار ربما نستطيع أن نقول استياء المواطنين الأتراك لأنه ظهر بشكل غاضب للغاية، وقال البعض أنه لا يثق بنفسه. واضح مركا أنا ما أحساس وقرني حال كاسو مرة نوكي إلهي اسكدري إلهي اسكدري آمين له إلهي اسكدري كواس مركا دو حال صادالينا يا وحليه وحكرا جبايا وحيس آمين على ماركو أردوغان داد بدر عمسول عبراني وحتى بين الله شيء وح بدر اسكجرا وحيو مركا دا إلهي اسكدري waxaa la dhaxdhigay ilaahay markii uu khayr ugu jira laga yaaba wareega kooda dakaadka alle way si haysan lahay laakiin hadda in ilaahay uu macna kala wata laga yaaba anaga inaan ogey asa an takrahu shay'an fa huwa khayru lakum laga yaaba waxa ka raadsanaysaa inuu khayr idin yuro ilaahay